halkani waa bartaanu youtube-ka ku leenahay ee Pino Live. kusoo dhawaada warkayga caawa. warkaasi waxa uu diyaar Cabdisamed Yuusuf. kusoo dhawaada idil ahaantiiba meel kasta oo aad kala joogtaanba warkayaga habeenimo. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay si weyn u yareynayaan weerarada military ee ku hayso magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine sida caasimada Kiev iyo Chernihiv kadib wadahadalo dhexmaray wakiilada labada dal salaasadii maanta iyagoo saraakiisha Ukraine ay sheegeen in ciidamada Ruushku ay ka baxayaan furimaha dagaalka ee halkaasi ku sugan sababtoo ah waxa ay ku guul dareysteen bay yiraahdeen intaanka ay joogeen jihooyinkaasi ama ujeedooyinkii ay ka lahaayeen ee duulaanka ay ku soo qaadeen ee dalka Ruushku. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa go'aansatay in ay si xagjir ah mararka qaarkood loo yareeyo dhaqdhaqaaqa military ee jihooyinka Kiev iyo Chernihiv. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Alexander Fomin ayaa yidhi mar ay maanta warbaahinta dowladda ee RIA uu siiyey waraysi kanaalka wasaaradda Telegramka ayaa sidoo kale sheegay in ay Moscow ay si weyn u dhimi doonto dhaqdhaqaaqyada military ee magaalooyinkaasi. tallaabadan ayaa daba socota wadahadaladii maalintii maanta ee salaasadii magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku dhex martay wufuud ka kala socota Ruushka iyo Ukraine. Alexander Fomin ayaa u sheegay saxafiyiinta wadahadalada socda ee ku saabsan dhexdhexaadinta iyo xaaladda aan nuclear-ka ahayn ee Ukraine ay gacan ka geystaan go'aankooda faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tallaabooyinkan lagu dhimayo colaadda ayaa raaci doona kadib marka wafdiga Ruushku ay ka soo laabataan Istanbul. Alexander ayaa sidaasi ku yidhi hadal ay siiyeen wakaalada wararka ee Ruushka ee TASS. Ukraine waxa ay ku dhawaaqis ku saabsan hoos u dhigista dhaqdhaqaaqyada military iyada oo sheegtay in ay qaar ka mid ah ciidamada Ruushku ay ka baxayaan magaalooyinka waaweyn ee caasimada Kiev iyo Chernihiv. waa hagaag daawadayaal waxaad warkaasi kala socotaan bartaan oo ku leenahay youtube-ka Pino Live. tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Cabdisamed oo idin la fi amaan illah.